kulan wacan saaxiibayaal halkani waa Caasim Media ku soo dhawaada muuqaal cusub iyo qiso cusub. Qisadani ayaa waxa loogu magac daray gacalka ayaa isku diray. Haatan waxaad ku soo dhawaataan qaybtii koowaad ee qisada. Waxaa jiray 3 gabdho oo saaxiibo ah aadna isku jeclaa waxaana la kala dhihi jiray Sucdi, Safa iyo Samira. Samira iyo Safa waxay ka dhasheen reer hanti leh waxayna ku soo koreen koolkoolin iyo kibir. wax walba oo ay rabaan looma diidi jirin yaraantoodii ilaa ay ka soo weynaadaan ehelkooda waxay ka dalbadaan waa loo fulin jiray laakiin Sucdi waxay ahayd gabar ka dhalatay reer iska meel dhexdhexaad ah waxayna aad u jecleed waxbarashada waxayna ahayd qof degan oo dabeecad wanaagsan. Samira iyo Safa mararka qaar markay ku kacaan falal xulxun sida xanta iyo dagaalka iyo wixii la mid ah iyada ayaa kala celin jirtay oo waanin jirtay mar walba. Sucdi waxay ahayd gabar aqli u saaxiib ah saddexdooda waxay ahaayeen saaxiibo aad isugu dhow oo isku faraxsan. waxay arintu sidaasi ahaato maalin maalmaha ka mid ah iyagoo jooga jaamacadda oo meel wada fadhiya ayaa waxaa hortooda soo istaagay gaari qurux badan oo qaali ah. hal mar ayay wada fiiriyeen kadib waxaa soo furmay albaabka gaariga mise waxaa ka soo degay wiil aad u qurux badan oo gaariga watay isaga oo waliba ka soo go'ayo cadar iyo barfuun aad u udgoon. hal mar ayay sanka la wada raaceen udgoonkii iyaga oo mar qura wada dhexeen waaw waxaasaa qurux iyo udug laga dhahaa. Samira waxay tiri gaariga ayaan ka helay iyo isteelkiisa. Safa iyadana waxay ku tiri alla labiskiisa iyo saacadu u xiran qurux badana. Sucdi ayaa iyadana tiri maasha Allah wiilka wuu dhameystiran yahay. iyagoo ku mashquulsan wiilka quruxdiisa caraftiisa iyo gaariga uu wato ayuu inta uu gaarigiisa xirtay soo dhaqaajiyay isaga oo marnaba fiirinin xaggooda. kadib waxaa la gaaray xiisadii gabdhihii waxay galeen fasalkooda in yar kadib wiilkii ayaa soo galay isla fasalkii waa ay farxeen gabdhihii waayo wiilkii ay indhaha ku wada hayeen ayaa waxa ay noqdeen isku fasal. mid walba waxay bilowday in ay si gooni ah u fikirto si ay ku baran lahayd wiilkaasi aad ayay ugu mashquuleen wiilka midba mar ayay fiirinaysaa. caraftii uduga ka soo baxaya ayaa fasalka qabsaday isla markaana gabdhihii maskaxda ka qaaday. wixii la fadhiyaba waxaa dhamaatay xiisadii waxaana la soo wada aaday banaanka. ugu horeyn Samira ayaa nasiib u yeelatay in ay isbarto wiilka. markii fasalka laga soo baxay waxay isku arkeen banaanka waxayna ku tiri ku soo dhawow jaamacadeena. intuu fiiriyay ayuu gadaal iyo geesaha iska fiirfiiriyay markaasi ayuu ku yiri iga raali noqo aniga miyaad ila hadlayday. way isku xishootay markaasi ayay ku tiri haa abuwe adiga ayaan kula hadlayay maanta ka hor kuguma arkin jaamacadda. waxa uu ku yiri haa maanta ayaa iigu horeysa jaamacadda. markaas bay weydiisay magaciisa wuxuuna ku yiri Salmaan adigana. Samira ayay ku tiri barasho wanaagsan ayuu ku yiri wuuna ka sii dhaqaajiyay oo fursad kale ma uusan siin sidii ayuuna ku baxay. Samirana iyada oo meesha taagan isla markaana niyadda iska dhahayso wax walba ha igu qaadato waa in aan ku helo Salmaanow ayaa waxa u yimaadeen asxaabteedii wayna isa soo raaceen waxayna soo aadeen xaafadooda. maalintii dambe sidii caadada ahayd waxaa kulmay 3 gabdho ee saaxiibada ahaa waxayna tageen jaamacaddii isla markiiba waxay fariisteen maqaayad ku dhex taalo jaamacadda si ay wax uga cabaan. misane waxaa markiiba soo istaagay maqaayadda horteeda gaarigii u watay Salmaan wuuna ka soo degay markiiba oo wuxuu soo galay maqaayaddii. albaabka markuu istaagay ayaa waxaa meesha wada qabsaday udugii ka soo go'ayay Salmaan. isla markiiba gabdhihii ayaa soo wada jeestay iyaga oo sanka la raacayo udgoonkiisa mise waaba Salmaan. turbadiiba Salmaan iyo Samira indhahoodii ayaa isku dhacay. Samira ayaa u dhoola cadeysay wayna salaantay. Salmaan ayaa isagana sidoo kale u dhoola cadeeyay oo salaantii ka qaaday. Salmaan markiiba gabdhaha dhankooda ayuu soo aaday wuxuuna ku yiri waani salaami ii warrama gabdho seetihiin. Safa iyo Sucdi oo yaaban oo la yaaban waxa meesha ka socda ayaa salaantii ka qaaday. sidaas darteed Salmaan ayaa isbaray Safa iyo Sucdi meesha ayayna isku barteen kadibna wuxuu dhahay isbarasho wanaagsan. isbarashadeena awgeed aniga ayaa bixinaya cabitaanadiina. lacagtii ayuuna dhiibay. intaas kadib waxaa la gaaray xiisadii waana la isa soo raacay fasalkii ayaa la soo galay. dhowr saacadood kadib waxaa dhamaatay xiisadihii intaa kadibna waa la soo wada baxay. Salmaan ayaa ka codsaday gabdhihii in ay saaxiibaan wayna ka ogolaadeen oo sidaasi ayay ku noqdeen saaxiibo Salmaan iyo 3 gabdhood.
Samiira iyo Safaa waxay isku dayi jireen midba midda kale in ay kula tartanto Salmaan si ay u soo jiitaan darteed mid walba waxay u dhawaan jirtay Salmaan balse Sucdi ma aysan ku fududaan jirin Salmaan wayna ka dhowrsan jirtay oo waa ay ka xishoo jirtay markuu wax weydiiyo ama uu la hadlo kaliya ayay u jawaabi jirtay si ixtiraam iyo xishood leh ayayna mar walba ugu dhoola cadeyn jirtay iyada oo aanan wax hadal ah dhihin. Samiira iyo Safaa waxay gaareen in ay iska kala maseeraan mid walba waxa ay rabtay in ay iyada kasbato Salmaan. Maalin ayaa gabdhihii iyaga oo wada jooga ayaa waxa la soo hadal qaaday Salmaan. Samiira ayaa tiri aniga ayaa koow bartay aniga ayuuna i jecel yahay. Dood dheer kadib gabdhihii waxay bilaabeen in ay isku khilaafaan balse Sucdi oo ahayd gabar degan oo ka caqli badan labadooda ayaa kala dhex gashay oo arintoodii dejisay. La soco qaybta xigta hadduu Rabbi dhaho daawad ha iloowin inaad muuqaalkani like saarto kuna soo biir channelkeena haddii aad ku cusub tahay oo subscribe taabo ha iloowin inaad gambaleelka furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaalada isla marka aynu soo gelino tan intaan ku kulmayna qaybta xigta nabadgelyo.